guda jirnaa warkood kala socotan TV-ga caalamiga ee Royal TV xaruntiisa magaalada Muqdisho haatanna ku soo dhawaada war goordhaweyna soo gaaray waxa saaka aroortay telefishinka caalamiga ee Royal oo qalab qaatay ukurkalida xaaladda kalluumaysatada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Xeebta Berbera ku gadaaman waxaanay ka warbixiyeen ganacsatada yaryar ee kalluumaysatada ahay kalluunka iyo kheyraadka ku duugan badeecna sidoo kale waxa ay noo sheegeen faa'iidooyin tiro badan oo kalluunku u leeyahay bulshada waxay farta ku gudeen xukuumadda oo ay sheegeen in aanay ka baritaarin dhinacyada gaadiidka badda iyo qalabka kalluumaysiga ama hirgelinta sariibado kalluunka u gaar ah oo ku yaala gobolada Soomaaliland oo idil waa kuwan iyagoo hadaba amuurtaasi farabadan dadka qabada ooyinkoodiiba macal ku jira baa la ilaa subul bahar baa macal badda ku jira oo macaanka iyo dhiigkarka waxa badda waka oo dadkan keenkun cunaya hadii ay badda galaan oo kheyraadka badda dib u eegaan dawooyin farabadan bay keenayaan way kala khatar badan to xaagina waa xaga jilaakina waa jilaan xagaagii lagu heli maayaba oo anaga imika la diro ayaan ka baqanaamay si ku soo noqon lahayn waxa sababaya dabeel xagaada maayad badda ka dhacda jirta xooga oo faraasida la yiraahdo oo saacadiiba inta soo meel jaraysa ma garanaysa laakiin jilaalkii waa badda jilaalo dabeesha xaga soo dhacaysa maaladeedu waa hoosoos oo qofkii laga warwari maayo ma garanaysa tabcan kulay feejinaan farabadan inkastoo ayna loo badda dadkiiba uma jeedaan feejinaantu waxay manaysaa marka badda loo soo jeesto ayaa manaysaa oo marka hada jeerka ayidkii gurmadka la iska rab dhigay kuwii magaranaysa dalxiiskii kuwii dadka baadidoonkii kharashkii badda la galiyay mayo iska ayaan iskaashta ma jiro hadda iskaashta leewan hormar baan gaalayba niyo kalluun inta badan mowqifkiisu waa iska adoo niman ugaarstay albaan iska naayo ugaarsuulis ilaahay baan mowqifka ilaahay garan kolay kalluunku wuxuu ku wanaagsan meel wanaagsan in lagu iibiyo meel nadaafadeedu ugu wanaagsan lagu iibiyo kolay meesha iska wanaagsan xooga kharashka waxa saaraba nadaafada ma garanaysa kolay kalluunka waxaan jecelahay dadka iibiya si iibiya inay ku iibiyaan meel wanaagsan ilaa wuxuu waa cunte in meel wanaagsan lagu iibiyo mid wanaagsan lagu jarjaro meel nadiif lagu jarjaro aada safety هذا أنا عن labadii kun iyo ayaan anigu kalluunka soo galay aan bilaabo marka kalluunku wuxuu badan yahay labada kaliilood marka jiilaalku soo galayo marka xagaagu soo galayo labadaas ay kalluunku ugu badan yahay inta kale uu jiilaalkii marka qabowgu soo galan ugu yaraadaa marka dabaysha xagaagu soo dhacdana uu yaraadaa anigu waxaan nahay dadka waxaan gaarsiiyay anigu wajaale shalay wajaala baan u diray ilaa wajaalaan gaarsiiyay wajaale burco iyo hargeysa intaba waan u diraa ascaanood waa la iga qaaday burco waa u raray waxaan kaloo u raray wajaale kalluunku imka xoog qiimaha kalluunka waa marba siduu yahay markuu yar yahayna kalluunku kor buu kacaa markuu batana hoos buu jabaa anigu laash horta qolyo laashashli way jiraan oo laashash badda u laashtirta laakiin anigu weli dakhligaygu intaa inaan laash ku iibsado maan gaarin gaadiid qof kale leeyahay baan dirtaa waan bad وعي حلقة نمكا إنك استول قال حلقة حقاق الله يدهضو ووقت حاضر كان نمكا حل يسبدل تشرو حل يسبدل كانوا كلهم هذا كلهم كوهويين وحيابا قناعسك ووانا سن بالشدة الصومالية الصوماليان ونقول باغيا بالشدة الصوماليان ونقول باغيا عنستي سين لهير قليو تيدي سين لهير قليو iyo ganacsigiisaba in la hirgeliyo waliba gaar ahaan dalka mushaarka muddo ay qayb qaadato kalluumaysatada aad u baahan tahay oo la gaarsiiyo kalluunka dibadda la gaarsiiyo marka waxa weeye marka taa laga yimaado kalluunku waxa weeye
waxyaabaha caalamku ka faa'iido ma garanaysaa horumarka gaadhsiiya waxa weeye wax soo saarka dalka in cashuurta laga dhimo oo aan cashuur loo yeelin in magaranaysaa dawladdu tabantaabiso oo ay soo saarto qalab soo saarto ay ka caawiso kalluumaysto aanay haysan agabkii kalluunka lagaga soo saarayay badda oo ay qayb dawladii hore ka qaadan jireen ama dawladdii xitaa xukuumadihii dhadhawaaya imika sidii riyaale maxaan ku dhaha cigaal siilaanyo iyo wax lagu soo saaro kalluunka ayay bixin jireen laakiin xukuumaddan imika talinaysa annagu wax agaba ayaanan ka hayn annagoon dhaliil badan u jeedinayn waanu nabadgelyo qabno haddana inay agabkii u soo saaraan kalluumaysafaahfaahinayaa waxaa laga yaabaa in badan oo ka mid ah dadweynuhu inay isweydiinayaan sababta muddada 28 sane ee uu jiray qaranka Soomaaliland loo arki waayay ganacsato ku dhiirata inay u iibgeyso kalluunka saylada dalka aynu dariska nahay ee Itoobiya waa Cabdirashiid Mubarak Cabdi Cabdirashiid Suul Royal TV Berbera